munaasabad ballaaran oo lagu maamuusay xiritaanka shirka afgarad iyo talis ee beesha galbeedka gobolka Sanaag ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay dooxada Dagaar ee galbeedka degmada Ceerigaabo. munaasabadda xiritaanka shirka afgarad iyo talis ayaa waxa ka soo qayb galay madax dhaqameedka beelaha Soomaaliland, madaxda xisbiyada qaranka, wasiiro, mas'uuliyiin, siyaasiyiin, culamaa u diin iyo dadweyne aad u tiro badan. waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay Suldaan Ismaaciil Nuur Wacays, Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow, Suldaan Ibraahim Cige Qoordheere iyo shirkudoonka kuwaasoo dhammaantoodba sheegay inuu shirkaasi ku soo dhamaaday nabadgelyo iyo guulo la taaban karo. shir dhaqan buu ahaa, waa shir aanu siyaasadda ka xakameynay, waa shir beeshu aayaheeda kaga tashanaysay, shir nabadeed weeye. gebagabadii xafladda xiritaanka shirka waxaanu go'aansanay in dhammaan reer Soomaaliland wixii noo iman karaa ay noo yimaadaan oo aan halka ku soo dhaweyno oo ay nala arkaan sida uu yahay shirku, sida uu xirmayo, waxa nabadgelyada aan ku xirnay inaan hadalla siyaasadeed halkan oo cid lagu duraya aanay ka soo bixin. beeshu waxay go'aansatay markay in badan rogrogtay arrimaha hoos ku qoran. kow, in la adkeeyo ku dhaqanka diinta islaamka. laba, in la ilaaliyo nabadgelyada dhanna looga soo wada jeesto cid kasta oo qalindaar ku samaysa ama qoonta. nambar 3, in la ilaaliyo deegaanka lagana ilaaliyo xaalufinta iyo nabaad guurka. inay mar walba nambar 4, inay mar walba isgarab taagto nabadda iyo samaha ku noolaanshaha bulshada ay la degan tahay. nambar 5, shaqeeyo oo la isgarab taago maamul kasta oo sifo sharci ah lagu soo doortay. 6, waxay soo dhaweynaysaa soo dhaweynta iyo la shaqaynta cid walba oo horumar iyo baraare ka samaynaysa dalka iyo deegaankooda. 8, raadinta dhulka aanay gaadhin waxqabadka xukuumadda, khaas ahaan dhulka qorfaha ah lagulana xisaabtamo ciddii maamulkeeda leh. nambar 9, taageeridda iyo difaaca jiritaanka Somaliland. beeshu waxay diyaar u tahay inay arrinkaas kaga qayb qaadato 5,000 oo dhalinyaro ah oo u diyaara difaaca qaranka jamhuuriyadda Somaliland. beeshu waxay si mug leh iyo miisaan leh uga qayb qaadan doontaa haddii alla ka dhigo doorashada madaxtooyada ee inagu soo foolle. waxayaguna dhankooda munaasabadda xiritaanka shirka ka hadlay madax dhaqameedka kala duwan ee lagu martiqaaday xiritaanka shirka. aad ugu mahadnaqayaa beesha shirka qabsatay afgarad oo ku guulaysatay maanta xiritaankiisii iyo xafladiisii. inagoo waqtiga ognahay inuu yahay waqti adag, muddana shirkani soo socday. aad baan ugu mahadnaqayaa shirka afgarad sida laysugu afkartay, waana ugu duceynaynaa minadharkiisa in ilaahay wixii asanna u dhammaystiro, sharaf iyo wanaagna ugu dhammaystiro. runtii farxad weyn bay noo tahay, sharaf weyn bay noo tahay inaad maanta nagu soo marti qaataan oo aan idinku nimaadno xafladii xiritaanka shirka afgarad iyo katalis ee beelaha Biciide iyo Welis. waxaanu sidnaa waa duco hadday beelaha habar jeclatay guud ahaan caam ahaan, hadday beeshata shirkaaga ku qabatay tahayna duco labilaaba iyagana waa u sidnaa oo maanta aanu u fadhino shirkaa warqashiisii iyo biladheerkiisa. wasiirka wasaaradda madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi, wasiirka wasaaradda dibudejinta Cali Saciid Reegal iyo mas'uuliyiinta saddexda xisbi ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay oo dhammaantoodba soo dhaweeyay shirkan ay beeshani qabsatay. waxaan uga mahadcelinayaa siday shirkooda hannaanka qurux badan u qabsadeen. wixii ay halka ka sheegeen iyo wixii kale ay gaar u dhigteenbana waxaan leenahay allah idinku guuleeyo. shirkii inuu yahay shir qiimo badan oo wax wanaagsan ka soo baxeen. sidaa darteed waxaanu la qabnaa waxgaradkii iyo beelihii iyo guurtigii halkan ka hadashay ee madasha lagu soo marti qaaday. haddaanu nahay xukuumadda Somaliland waxaanu soo dhaweynaynaa dhammaan go'aamadii halkan ka soo. ugu dambeyntiina waxaa shirkaasi soo gabagabeeyay suldaanka guud ee beelaha bariga Burco, Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali. gobolka wada tashada midooba
وحوض قيبسدا وإسراع يعني أود عليه دين قبلك هدانو يدين الله يالا وكلا نتالتين والقبلك وحكوتين قبلك وحكوتين وحيبوا كما إلهي عافي ما تصير وحيبك الله عافي ما تصير وحيبت قمنا إلهي وجابر سعيد على جابر بلشاوي كلسن تي في عرق